wargeyska caanka ah ee reer Spain ee Mundo Deportivo ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi uu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka horyaalka La Liga ee Brio Sabti ah ay la ciyaari doonaan kooxda Xaalka. Lionel Messi ayaa ka dhaawacmay sanka intii uu socday kulankii lugta koobaad ee wareegga dhamaadka tartanka Champions League kaasoo ay Manchester United ku booqdeen garoonka Old Trafford kadib markii ay isku dhaceen daafaca dhexe ee United-ka Chris Smalling. waxaa jirtay cabsi ku aadan in Lionel Messi uu ka jabay dhanka sanka taasoo ka dhigi lahayd in ugu yaraan uu garoomada ka maqnaan doono muddo dhan 10 maalmood. laakiin waxay u muuqataa inuusan qabin wax dhaawac ah kadib markii uu maray baaritaano caafimaad Khamiistii shalay ahayd. wargeyska oo si aad ah ugu dhuundaleela arrimaha kooxda Catalonia ee Barcelona ayaa warbixin uu daabacay wuxuu ku sheegay inaysan jirin sabab ku hor istaagi karta Messi inuu ciyaaro kulanka bari iyadoo uu tababare Valverde uu si toos ah u heli karo adeegiisa. laakiin sida ay wararku sheegayaan macalinka reer Spain ee Valverde ayaa wuxuu door bidayaa in Messi uusan ku soo bilaabin kulanka bari ay kula ciyaari doonaan kooxda Xaalka horyaalka La Liga si uu